قبس كالغيث المدرار نقطف من كل الأزهار وبنهج الغر الأطهار نسلك درب العلم ونعمل قبس كالغيث المدرار نقطف من كل الأزهار وبنهج الغر الأطهار. غزوة القادسية markay dhacday dagaalkaasi la isku hayay Rustam yiri war bal nimankan muslimiinad waxa soo saaray aan eego mentality-gooda iyo aqligooda dadkan isay u fikirayaan bal cid soo diray buu yiri Sa'd ibn Abi Waqqas واحد من 10 المبشرين بعيدك hogaaminay wuxuu yiri u tag saddex saxaabi buu kolba mid u diray kii koowaad loo diraa uu tagay isagoo warmihiisa iyo wixiisii ma sita waxay yiraahdeen warmaha iyo hubka loolama galo madaxdayada hubka dhigo madaxdiinu iyada ay yeeratay wili hadaydan doonay iska noqonaya hubkaygaan iska dhigi maayo walaal soo qaado maayo isagii baa loo tagay ninka caankaas uu sheegay baa leeyahay anigu wadaan ma hubkayga la sii deynay iska tagaya soo daayay buu ma hubkiis fars yaro gaaban buu wataa leeyahay uu iska soo qadiifada iyo ninkan wuxuu rabaa inuu muujiyo dawladnimadiisa inta ilaagtay banaana dhan buu qadiifada dhigtay sariirtii boqortooyadana uu saaray qadiifadihii buu iska la soo barkin yaro halkan la dhigo waran ayuu ku xidhay baa leeyahay faraskiisii isagoo warankiisa iskala tukubayo u gala wuxuu weydiiyay maxay idin soo saaray wadankii yaani hadii idin ka keentay gaajo iyo xoolo iyo waxaan idin siinay yaani xoolo buu leeyahay arigiina ku noqda wuxuu yiri ilaahay baa na soo saaray Allahu ta'ala ilaahay baa na soo saaray muxuu sheegay ilaahay baa na soo saaray wuxuu noo soo saaray buu leeyahay inaanu ka saarno dadka ay adoonsadaan oo ilaahay dadka adooma uga wada dhigno waxaan u soo baxnay buu leeyahay dadka inaanu ka saarno dunida cidhiidhigeeda waanu balaceeda geeyno bal labada nin hadda u kala fiirsiyo adduun waxay kala haystaan ninna faras yaro gaaban buu ka wataa iyo laba warar ninna carri buu gogoladay laakiin ninka faraska yar fuushan baa wuxuu leeyahay dunida cidhiidhigeeda ka saaraya oo waxaan ku geynayaa maxay ila sicatiha waxaan kala soo baxay buu leeyahay inaan idinka saarno diimaha haysataan dulmigooda oo aanu idin saarno cadliga islaamka iyo cadl yani waa nin ustaad isku kalsoon waa professor waarkaya inuu yahay rasuul ilaahi rasuulkiisa xaqiisa laga soo diray oo umamka xil ka saaran yahay oo raba umadahan habeenka gudaya inuu habeennimada ka saaro maadaama uu boos ka rubaysay inuu taagay wuxuu arkaa dadkan inay masaakiin yihiin waayo waxa ka maqan hadiga ilaahi adna adigoo hadiga ilaahi sidaad soo aragtaa inaad tahay maxay qof u baahan mujtamaca caalamiga iyo maxay yiraahdeen maanta